madaxweynaha Soomaaliland oo saaka ka ambabaxay magaalada Burco oo boqolay deegaanka og isla markaana ka qayb galay xuska sanad guurada 22aad ee asaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa markii ay soo idlaatay munaasabadaasi ayaa waxa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka u dhaxeeya og iyo magaalada Burco waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa inta aanu soo gaarin magaalada Burco uu ku nastay deegaanka Wadaamago iyagoo shacabka deegaankaasina si kaliya laaba ku qaabilay wafdigaasi intaasi kadibna waxa uu soo ambabaxay dhankaasi magaalada Burco ee gobolka Togdheer mas'uuliyiinta gobolka kuwa degmada saraakiisha ciidamada kala duwan mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka iyo shacabka magaalada Burco ayaa waxay kaga hortageen deegaanka Yurub oo 15 kiiloomitir kaga beegan bariga magaalada Burco iyagoona u soo galbiyay gudaha magaalada boqolaal ka mid ah dadweynaha Burco iyo gaadiidkooda oo hareero tubnaalaamiyada iyagoona luulaya caleemo qoyan iyo sawirka madaxweynaha waxaana wafdiga madaxweynaha la geeyay qasriga madaxtooyada Burco waxaana soo dhaweynta magaalada Burco loogu sameeyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland ka hadlay barasabka gobolka Togdheer iyo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland iyo xubno kale qoobsanay ama aanu noqonay gobolkii ugu horeeyay ee madaxweynaha intuu sii dhaweeyay subaxii galbiya haddana galabtii soo galbiya waxaanu 12 saacadood in ka yar ayaanu galay laba soo dhaweynood sii dhaweyn iyo soo dhaweyn waana arkaysaan dadka iyagu may daalin sidii subaxii ay soo dhaweyn bay haddana galabnimadii maanta u soo dhaweeyeen waxaan ugu horaan halkan mahadnaq aan la koobi karin anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan u soo gudbinayo dhamaanba bulshada iyo shacabka xalaasha ah qiimaha leh reer Togdheer sida uu gudoomiye sheegay Maxamed Aadan Ibraahim qabo gudoomiyaha gobolku Burco waa meesha kaliya ee muddo 12 saacadood waftigii madaxweynaha saaka sii dhaweeyay galabnimadana soo dhaweeyay madaxweynuhu wuxuu ku jira hawlihiisii qaranka iyo inuu maanta ka qayb galo munaasabadii 22 guuradii ciidanka qaranka Soomaaliland markii la aasaasay taasoo ka dhacday og oo xaflad aad u qurux badan ahayd halkan si aad iyo aad u qurux badan baa naloogu soo dhaweeyay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa ciidamada geesiyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland had iyo habeenba heeganka ugu jira difaaca dalka hooyo way mudan yihiin in la booqdo in la xurmeeyo in wax loo qabto sababtoo ah waa kuwa iyaga la'aantooda aan u horumar jireen aanay nabadi jirteen guryaheennana aynaan ku seexaneen marka hambali ayaan halkan uga dirayaa madaxweynuhuna maanta wuu soo hambalyeeyey guud ahaanba waayaha iyo wacyiga jira iyo guud ahaanba duruufahoodana uu u kuurgalay darajooyin buu bixiyey madaxweynuhu oo ciidamada qaranka qaar ka mid ah darajooyin buu siiyey sidaad warbaahintaba ka arki doontaa caynaba oo aanu soo marnay iminkana waxaanu ku soo hoyanay magaalada Burco oo si qiimo leh naloogu soo dhaweeyay rag dumar dhalinyaro haween aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaana sharafta iyo karaamada aadna karaamayseen ee madaxweynihiina soo dhaweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsanyiin Khadir Cabdirasaaq Saleebaan shabakada caalamiga ee Adwanaag News magaalada Burco.